Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada dhammaan akhyaarta janalka Duni Cusub. Maanta waxaan gelaynaa muuqaalkii toddobaad ee koorsada aan ku baranayna luqadda Ingiliishka. Maanta waxaan diiradda saari doonaa interrogative adjectives. Interrogative adjectives wuxuu yahay iyo ereyada la dhaho interrogative adjectives iyo waxyaabaha loo isticmaalo iyo example-kooda ayaan fiirin doonaa. Interrogative adjectives are question word waa ereyo and question use loo isticmaalo to ask time about time waqti wax ku saabsan ayaa laga weydiinayaa place meel magaceeda reason sabab or maana dabeecad shaygan dabeecadiisa wax laga warsani amba sababkiisa waxaan ay u dhaceen meel baa laga warsan karaa amba waqti gaar ah baa wax laga weydiin karaa. Waxaa ugu horeyso number 1 when goortee. When waxaa loo isticmaalaa asks about time waqti baa wax laga weydiinaya. When haddaad aragto waa adjectives interrogative adverbs oo laga weydiinayo waqti. Asks about time waqti ayaa wax laga warsanaya. When ugu horeyso asks about time waqti baa wax laga warsanaya. Kor waxaan soo sheegnay asks about time waqti wax laga weydiin, place meel wax laga weydiin, reason sabab wax laga weydiin or maana iyo dabeecad shaygan dabeecadiisa wax laga weydiin. When baa ugu horeyso ask waa weydiin, asks waxaa wax laga weydiinayaa about time waqti wax ku saabsan. Example tusaaleyaan fiirnayna markaa ayagoo tusaale ku jiraan baa fiirnayna. Waxaa ugu horeyso when will you come goormeed imaani. When goortee will you adiga come aad imaani. Markaad sidaan u jeedno waxaa ugu horeyso when tan waa hal erey oo su'aal keena way su'aal buu keenayaa. Su'aashana waqti baa wax laga weydiinaya markaa. When goortee will waa isagana erey ku tusa wax mustaqbalka dhici doona. When will you come goormeed imaan. Haye tusaalaha labaad waxaa waaye when haddana when goortee did the lesson cashirka status uu bilaabmay. When waxaa waaye marka asking question word did the lesson cashirka start goormu cashirka bilaabmay. Midda tusaalaha saddexaad waxaa waaye when are they leaving goormay tegayaan. When goortee are they ayaga leaving ay baxayaan. When are they leaving goormay baxayaan. Qof baa weydiinaysaa waxaa rabtaa inaad ogaato goorta ay dadka tegayaan. They waxaa dhoo qof oo adiga aadan ku jirin. Marka when are they leaving goormay tegayaan. Tusaalaha afraad oo halkan ka barnan waxaa waaye when were you born. When goortee waqti baa lagu weydiinayaa. Were you adiga born aad dhalatay. When were you born goormeed dhalatay. Marka afar su'aalood oo aan fiirnay when ah mid walba waxba wax laga weydiin. Marka when haddaad maqasho when waa waqti. When kolba waqti weyn. Tusaalaha labaad waa why waa sabab waa midii labaad. Why waa ereyadan interrogative adverb ku ka mid yahay. Waxaa la dhahaa why erey sababin baa la dhahaa sabab. Asks wuxuu wax laga weydiinayaa about reason sababkii shayga loo sameeyay baa wax laga weydiin. Why sababtee way marka why sabab. Asks waxaa wax laga weydiinay about reason sabab baa wax laga weydiinaya. Sababka shaygan uu dhacay waxaan u noqdeen baa lagu weydiin. Example marka examples tusaalayaashooda fiirnayna. Examples tusaalayaal ereyga example hadaan spell x a m p l e s waxaan mar badaa xooga saarto adiga fahmayo. Tusaalaha koowaad number 1 waxaa waaye why are you late. Aan ku celiyo why are you late maxaa u soo daahday. Why sabab are you adiga late aad u daahday. Why are you late maxaa u daahday. Marka why waxay ka mid tahay ereyadii aan dhahaynay questions words. Why sabab are you adiga late aad u soo daahday. Why are you crying maxaad la oynaysaa. Why are you crying maxaad la oynaysaa. Why waa erey weydiin waa interrogative
adverb way, interrogative adverb. Are you-na waa hal ruux oo ku ag joogo, aadaas u qaadanay. Haddii aan isku dhejino marka waxay noqonaysaa why are you crying, maxaad la oynaysaa. Crying waa ficilkii la sameeyey oo hinta ahaa. Why did he leave, muxuu u tagay. Why did he leave, isaga muxuu u tagay. Why sabab, did he asaga leave uu u tagay, halkee sabab uu u baxay lagu weydiinaa sababka ruuxaas u tagay. He waa hal qof oo raga amba ku dhawaad mise kaa fogaade asaga unbaa af Soomaali xitaa waa leey. Why waa erey ku tusaa su'aal. Ereygeena saddexaad oo aan ku baran doono interrogative adjectives waa how asks waxay ku weydiisaa about manner dabeecadda or way sida waxaan sidee bay u dhaceen. How sidee wey, marka how sidee. Asks about manner waxay wax ka weydiisaa dabeecad or mise ereyga or waa mise way wado. Example tusaale. Examples markii la raacin plural ay noqonayaan. Examples waxaan baranaynaa how sida jumlad loogu isticmaalo iyaga. Ereyada how ka bilowdo qaabka jumlada loogu isticmaalayaan baranaynaa. How sidee. Are you adiga sidee tahay. How are you adiga sidee tahay. You waan soo baranay. Hadday ka soo hormarto waa su'aal. Haddii you-da inta la qoro la gadaasheeda la raaciyo waxay noqonaysaa hadal caadi ah. How are you sidee tahay. How did you do that, sidee ku samaysay. How sidee. Did you adiga do aad ku samaysay that arrinka mise ficilka sidee ku samaysay. How sidee, marka ereyga how aan u dan leenahay. How sidee. Did you do that, sidee ku samaysay arrinka. How sidee. Do you cook rice, aad u karisa bariis. Qaabka aad u kariso waxaa la maana dabeecadda or way sida lagu weydiinayaa. How do you cook rice. How sidee. Do you adiga cook aad u karisa rice bariiska. How did you cook rice, bariiska sidee u karisaa. How can I learn English, Englishka sidee ku baran karaa. How sidee. Can I learn English, Englishka aan ku baran karaa. I waa hal qof isaga iska warramay. How can I learn English, Englishka sidee ku baran karaa. How does the machine work. How does this machine work. How sidee. Does this machine, mashiinkan work uu u shaqeeyaa. Work waa shaqo, machine waa machine. How na waa sidee. How does this machine work, mashiinkan siduu u shaqeeyaa. Cashirkeennii ahaa interrogative adverbs meeshaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Haddii intaad nala soo gaarteen aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Cashirka muuqaalka xoogga siiya, casharada ku celceliya. waa inta afartaa erey ee su'aal weydiin ah. Markii aad rabto inaad qofka wax weydiiso shayga dabeecadiisa amba siduu yahay waxaad isticmaalaysaa afartaa erey ee how ugu dambeyso. Marka dadaalka loo badiyo insha Allah. Cashirkii oo baariba internetka idin soo gelinaya aniga oo intaa doontaan aad ku ceshan kartiin. Marka insha Allah casharadana xiga intaan ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo. Muuqaalka xaqiisa siiya. Sidaas iyo nabadgelyo.